الحمد لله سنة لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعل هذين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. إلهي ونغيل هو هنوصن دادكنا هنونية. إلهي هنغيلين هو هليسن dadkana haleeya. mujtamaca barnaamijka meel walba ka daawanaysa barnaamijka maanta gufaacu wuxuu ku saabsan yahay qadiyadii shalay ka dhacday baarlamaanka Soomaaliland. ummadda barnaamijkan dhageysanaysa waxa hadalkani ku socdaa aqoon-yahanada ka soo jeeda waqooyi dhamaantood, haday noqoto dhulbahanto warsangari iyo isaaq ciise intaba inta deegaanka. walaalayaal, dadku hadduu wada noolaado oo ku wada noolaado cadaalad waa wax wanaagsan. haddii uu ku wada noolaan waayana waxa wanaagsan dadku inuu kala tago oo noqdo dad nin walba xuquuqdoodii u lahaa dadkiisii u raadiya, dulmigana ka ilaaliya. waxaynu ognahay laascaanood waxa ka taagan waxay leeyihiin annagu systemka Soomaaliland ka mid noqon mayno. waxaanu rabnaa dad Soomaaliyeed oo raba midnimo, annagana deegaankayaga iyo dhulkayaga maamulayna. waxaynu arkaynaa waxa dhiig ku daatay, waxaynu arkaynaa waxa dhimasho iyo dhaawaca. in dadka la qadariyo la ixtiraamana way waxay leeyihiin. haddii aan wax yar u soo noqdo ummadda barnaamijkan daawanaysa, systemkan Soomaaliland ka jira waa system qiyaamo wey. waa system lagu magacaabo systematic repression. waa wax dusha ka qurux badan oo aad aragto magaca inuu madaxweynuhu isaaq yahay, madaxweyne ku-xigeenkuna gadabuusi yahay, ra'iisul barnaamijkuna uu yahay nin dhulbahantaa. dadkana la tusayo inay sida u shaqaynayaan. shalay cadna adduunka markii la weydiiyay ma isaaqba ay lahayd maya, waan isku wada jirnaa. laakiin maaha xaqiiqda markay dhabtu tahay waxay ku tusisaa baarlamaanka Soomaaliland systemka ay ku shaqeeyaan. waxaynu ognahay shalay maxamed abiib wixii baarlamaanka ka dhacay. baarlamaankan waxa bari hore lagu feeray nin dhulbahanta ah baashe, waxa feerayna wuxuu ah nin isaaq. baarlamaankan waxa nin lagu yiri gabooyo ah, adigu midgaan baa tahay, dadku wada maqlaya. nin gadabuursi waxa lagu yiraahdo faqiir baa tahay, nin kala qadhuuf baa lagu tufay. waxyaalahaas oo dhan waxa ku tusaysaa ka turjubaysaa dadka baarlamaanka fadhiya nooca ay yihiin iyo sida ay u fikirayaan. ummadiina iyaga ay yihiin dad wakiila oo la soo doortay oo matalay. marka hore dadka nooca mujtamaca lagu sii daayo ma waxaan rabaa inay ogaadaan noocaas aad arkaysaana khiyaamada ku salaysan ee ah systematic repression ee dusha ka qurux badan hoosta wax ka quwan. waxaa jira qisooyin soo dhacay Soomaaliland oo ugu horeyso madaxweynihii aan isaaq ahayn ee soo mara daahir yaale kaynbo wixii hadal baxayay, wixii ceeb dhacayay, xitaa dhiig wadada in lagu gowraco xaqdarra lagu sameeyo wuxuu sameeyay garan waayo iskaga baxo oo maamulkiisa ka wareejiyo. waxaynu ognahay in baarlamaanka dhexdiisa Soomaaliland in iyagoo fadhiya ay cabanayaan gadabuursigii, dhulbahantihii, warsangarigii. uu kooramkana gudoominayo gudoomiyaha imanka xisbiga wadani musharaxana ah Ciro oo leeyahay ina jirde war gadabuursigu way bixeen, war dhulbahantihii way bixeen, kooramku inoo buuxaa. horta hadalkaas dhaba kooramku wixii loo sameystay ujeedadiisu waa inta. marka maxamed abiib iyo ragga kale cali xaamudi ee midna leeyahay waa la saaray maalin, midna qandhuuf baa waxa wanaagsan inay tashadaan oo ay ku tashadaan waxyaalaha qaarkood waxba kama sameyn kartid. waxa fiican inaad adigu wax samaysato sida iyagu wax u sameysteen, xaqna waad ugu leedahay. maanta dhulbahantu waxay leeyihiin anagu waxa iyagii baa samaysanayna. maxaa u diidaya kuwan gobolka awdal ee marna baarlamaanka laga saarayo, marna qandhuuf lagu tufayo, marna wadada lagu goorgooracayo iyagu inay awoodii dhulkooda iyo xuduudahooda sutaan oo noqdaan dad iyagu maamuli kara gobolkooda. bal Soomaali kaliya waxaan ahay noo dambayso. waxaan la hadlayaa kuwa siyaasiyiinta iyo kuwa aqoon-yahanada, war waxba idin noqon kartaan haddaynu idinku wax iska dhigtaan. laakiin inta nin wax samaystay aad isku nabayso wax kaaga qurux badan, waxaanad waxba ka qaban karin waxa kaaga qurux badan inaad wax ka qabato. waxaad wax ka qaban karto gobolkaaga awoodiisii, xuduudihiisii, macdan buu leeyahay, dhaqaal buu leeyahay, xoolo buu leeyahay, bad buu leeyahay. adigu wax ka qabso, dadkaagana iskugu yeedh, awoodiina gacanta ha kuu gasho, dhulkana adigu qabso. dhammaan dadka barnaamijka daawanaya waa anigoo Xamed Cali Cilmiya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.